السلام عليكم صاحبي على soo dhawaada markale iyo channelka Cabdinaasir Guusha falan hadii aad ku cusub tahay channelka rukumo subscribe sar muuqaalkan la garan si dad badan uu gaaro waxaan ka hadli doonaa muuqaal ku saabsan baraha bulshada oo aad u qabsaday oo sameeyay PUBG ayaa sameeyay muuqaal dad badan oo Soomaaliyeed aysan jeclaysan sababtoo ah muuqaalka waxa uu ka hadlay asaga oo qabri challenge ku dhex sameynaya طبعاً إن السوشيال ميديا هو تقاركتي لكن وحارنا إن وفل إلينا مقالكاس إلا دور أريمود وسن شريعة الإسلام كمقالكاس وافق سنين وحدريم كرتاع قبره إنه كمدي هاي وحيابها ومهيسن أي مسلمين تا وأنا مركا وجودا بس يقف كمسلم كماشى لو عاص وأنا وحيابها يوجد وينهين ديمها كلا ودين الإسلام كحقه يوجد وانتهي إن قف كمسلم كأهل كراميو كليه لونا عاصو قبره markii uu geeriyoodo qof walba geeridu uu dhimin doona qof walbana uu arki doona geerida waana meesha ugu dambeysay ee qofka muslimka ah uu abaalmarin doono waxa uu sameeyo amal ah sidaan wada ognahay qabrigu culimo badan oo adduunka kamid ah oo culimada islaamka ah qabrigu waxay ka sameeyeen muuqaalo laakiin ujeedada uu sameeyeen waxay ahayd in ayagoon isduugin oo si caadi ah qabriga inta u galaan xasuusiyaan ummadda muslimiinta ah in meesha ugu dambeysay qofka muslimka ay galayo uu yahay qabriga laakiin PUBG wuxuu ku lifaaqay youtuber hindi ah muuqaal uu sameeyay ayuu ku lifaaqay taas oo ka soo horjeedo shariicada islaamka waxa dareemaysaa arinta uu PUBG sameeyay waxyaabaha uu danta u kala hay ugu muhiimsan waxay ahayd challenge magasho waxyaabaha qiyamka shariicada islaamka waxyaabaha oo la ilaaliyo ay u baahan tahay mana gasho waxyaabo lagu ciyaaro ciyaar ma gasho sida dareemayno asaga waxa uu ka dhigtay wax lagu ciyaaro ama wax tafaahu ah oo iska meel yar ah qabrigu nabiga kaleey salaatu wasalaam nabiga ku saliya nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri qabrigu waa laba mid وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النار labadaas inuu qabriga ku noqdo in beer kamid ah beeraha jannada ku noqdo ama god kamid ah godadka naarta inuu ku noqdo qabriga sidaas darteed waxyaabahan laga rabo ee islaamku uu baneeyay waxa kamid ah xasuusinta qabriga in la xasuusto qabriga waa wax banaan oo qofka caadiga ah asaga oo sheegaya ka hadlaya xasuusin عادي انت ودخ galo waa iska caadi laakiin inuu istuugo oo dhaho challenge aan sameeynaya ama ciyaar in dadka muslimiinta ah loo horseedo ma ahan wax ka soo horjeeda shariicada islaamka waxa jiro mabaadi qiyam iyo sharaf ay leedahay diinta islaamka waxa jiro goobo munaasib ah oo u baahan in la ilaaliyo codkoodana kor loogu qaado si bulshada ay ugu baraarugto waa dareemi kartaa jiilka hadda jiro waa jiil challenge ah marka aad u horseedid dhaqan aan Soomaalida ku cusbeen waxay horseedi kartaa in dhaqankaasi ay ka dhigtaan mid ay waqti kasta ay sameeyaan sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan ka falcelino oo aanan taageerin kuna dayanin dhaqamada ugubka ah ee bulshada Soomaaliyeed loogu talagalay in lagu weeciyo wadadii saxda ahayd waxaan u baahanahay inaan sameeyno wax diinta islaamka ay ogoshahay wax aad ku heli kartid views oo wanaagsan adiga oo waaqiciga dhabta ah ee islaamnimada Soomaalinimada iyo dhaqanka Soomaaliyeedba aanan ilaaweynin walaalayaal sideedaba shariicada islaamku waxay banaysay wax kasto oo wanaagsan in qofka kale loogu daydo oo shay xun ah in qof kale oo gaal ah aad kaydaytid adiga oo hadana ku lifaaqayo diintaada islaamka mabaadi'daadii adiga oo hadda waxay ka dhigan tahay jiritaanka Ilaahay iyo qabrigii iyo waxyaabihii kale in maaragtay isbarbardhig lagu sameynayo asaga hadda ciyaar ka noqoto ama si kale ay ka tahayba qofka asaga qalbigiisa Ilaahay baa og laakiin aniga waxa ku lifaaqeena in ay tani tahay wax ka soo horjeeda shariicada islaamka loona baahan yahay inaan qofna kaga dayanin oo noocaas oo kale dhaqankaas oo kale aadan sameeynin
وحرجينا إن شاء الله إن نكبر الرجل إن كنا إلى عندنا نوعية جالنجية قلدن سيد قلدن لو ماري مسيردين هدي أتكون حسبتها جنرال كان سبسكرايب صار كمبرل الكتابه نوتيفيكيشن كدارو هذه هذا ما سنتين مقال كان سيلا جري سيد بدن وجارو ونفع إن شاء الله